السلام يا دمان dadka martida ah iyo dadka sharafta leh reer Minnesota oo halkan ugu soo dhaweeyay dhamaan magacyadiina iyo maqaamka joogtaan baa idinku salaamaya marka koowaadna aad baan idinka mahadcelinayaa sida wanaagsan aad noo soo dhaweyseen noona marti geliseen ayaamihii aan idin la joognay aad iyo aad bay farxad noo tahay hadalkoon baan dhihi doonaa marka koowaad waxa sharaf noo ah inaan imaadno magaalada Minnesota magaalada Minneapolis gobolka Minnesota oo runtii ay ku nooshahay jaaliyad Soomaaliyeed oo firfircoon oo muuqata oo lagu daydo oo tusaale fiican u ah dadka Soomaalida ah ee qurbahaaday ha joogeen waqooyiga America ama ha joogeen Europe ama ha joogeen meel kale bulsho muuqata oo ka dhex muuqata nolosha meesha oo dhan haday tahay nolosha siyaasadda iyo tan ganacsiga iyo tan bulshada intaba ka dhex muuqata siyaasadda ku jirta runtiina tusaale wax aad iyo aad bay runtii sharaf noogu tahay inaan ka soo qayb galno waxaan ka hadlayaa barnaamijkii doorashooyinka Puntland iyo amuraha la xiriira Puntland iyo dowladda federaalka su'aalaha dhaxyaala marka koowaad idinku horta geedacana la ku jirtaan waxaan idin leeyahay geedacana leh doorasho ayaad galeysaan doorashadiina baa dhow tiin kala duwaneed heerarka kala duwanaa marka idinka ruuxina waa idinku soo dhaweynaya waxaan idin rajaynayaa inaad noqotaan community firfircoon oo mar kale dhiig cusubna ku soo siyaadiya kuraastiina xigsada kuraas cusub oo kalena keena doorashada Mareykanka isha lagu wada hayaayo hadda tiina basi taariikhiyo gabar baa tartamayso haddana waa madow iyo cadaan baa kala dooranaysan balaagan weyd weey marka la eego Trump iyo doorashada iyo Harris iyo Walz marka doorasho taariikhi taagan tahay anu marka waxaan dib ugu noqonayaa doorashada Puntland oo dhacday dhawaan golayaasheeda deegaanku runtii waxay ahayd himilo dadka reer Puntland ay lahaayeen ilaa asaaskii Puntland 25 sano 26 sano saddexdii sano ugu horeysay ayay ahayd ka bacdi in doorashada la aado axdigay ku qorayd in qof iyo cod la aaday ahayd intaasna himilay ahayd way soo daahday isku day badanna way soo martay 15 sano ugu dambeysana si active ah ayaa looga shaqeynayay aan dhaho saddexdii dawladood ugu dambeeyay ama afartiiba laga soo bilaabo 2009 dawladii Froole oo ahayd mid ugu horeysay isku dayga samaysay barnaamij kala si fiican u dhaqaajisay dawladii ku xigtay Cabdulla Ali Gaas iyo danigii koowaad iyo midda hadda danigii labaad oo socotaba si toos ah ayaa looga shaqeynayay laakiin markii ugu horeysay taariikhda in badan 56 sano 17 sano intay tahay ma garanayay marka laga reebo gobolada Somaliland ayay doorasho dadku ay si toos ah u soo dooranayaan dadka metelaya ay ka dhacday deegaanada Puntland runtiina sharaf bay noo tahay waxaan aad ugu faraxsanahay inaan qayb ka ahaa barnaamijkaas magaca geedacana aan ku suntanaa hawl fudud ma ahayn barnaamijkaani waxaan ku bilownay 3 degmo oo lagu tilmaamo doorashadii hordhaca ahayd wax kale ma ahayn waxayd maadaama muddo aan doorasho la gelin bal in la tijaabiyo oo wax laga barto oo khaladaadka la eego si fiican bay doorashadaas u dhacday haday dhacday su'aalo badanna way ka soo baxeen dabadeedna waxaan ku xajinay inaan gallo 30 degmo oo kale oo markaas ku xigay oo hal maalin dhacay oo iyadana si fiican ay uga soo dhacday 3 degmo oo gobolka Nugaal ah oo markaas su'aalo ka horiyay awgeed dib ugu dhacay waa ka dabageynay marka 36 degmo oo dadku golayaashii deegaanka ay soo doorteen ayaa markii ugu horeysay maanta ka jira Puntland runtiina waa taariikh cusub waxa ka jira 8 xisbi siyaasadeed oo iyaguna dadka metelaya oo runtii iyaguna taariikh sameeyay waxa ka jira guddi doorasho oo soo maray taariikh badan soo maray guddigii koowaad oo Tibek 1 Tibek 2 Tibek 3 haddana Beck baa jira ama guddiga doorashooyinka rasmiga ah ee Puntland marka waxay muujinaysaa taariikhdaas ay soo martay doorashooyinka Puntland inay tahay midaan habeen ku soo booda ahayn ee jaranjarooyin ah oo mar walba wax laga baranayay ayay ahayd ma fududayn haddaba doorashada Puntland marka la galo caqabado badan baa ka horiyay caqabada ugu horeysa waxay ahayd dadku isbedelka ma jecla bari waa laga baqaa waxay soo sidee lama yaqaano waxa laga fili kara lama garan karo badanaana waxa la yiraahdaa dadka ku ladan meesha la joogo
ama ku kalsoon siday tahay iyo dadka khayrka ka filaya meesha aan la aqoon ayaa isbedelka ku loolama marka dadkii sida xaalku yahay ku kalsoonaa ama digada jooga jeclaa xiradooda qaayibay haba xumaatee iyo dadkii waaga cusub raadinayay ayaa ku loolamay doorashadaas marka waxay ahayd doorasho dood badan ay ka dhacday doorashada caqabadaha ugu weynaa ka sokow isbedelku aan dadku jeclayn waxaa ka mid ahaa inay siyaasado kale hardiday dowladda federaalka ayaa doorashada sababaha deerna waan qeexi karin ugu hortimi runtii uga caartantay geed dheer iyo geed gaaban buu u fuushay jamhada nagu samaysay xataa tiri haddii aad doorashada aadaan yoomal qiyaamihii baa dhacayo 24 beri baad ku burburaysaan cabsi badan keentay waxa kale oo jirtay iyaduna siyaasadaha localka ah oo Puntland oo iyaguna markii dambe saameeyay laakiin ujeedada aan kala hayn oo ugu weyn ka sokow in ahayd balan lala galay dadka reer Puntland oo dastuuri ah waxay naga ahayd doorashadu annaga arrin si falsafiya markaan u eegno inaan hirgelino hanaankii federaaliga ahaa ee Puntland lagu asaasay ee buddiga uu ahaa inaan ka dhabayno muddo Puntland iyo dowladda federaalka dood baa dhaxtaalay anagu dowladda federaalka waxaan lahayn nidaamkii baad ka caga taagleynaysan iyaguna waxay lahayn idinku nala mid baatihino dowlad kale oo gorow fadhida baatihino dowladii meedan daadejin doodaas way nagu adkayd maadaama aanu nabad ahayn deganeyn haddana hanaankaas aan fulin weynay waxay noola muuqatay inaanu u ekaanayno laba dowladood oo kalarka is haysta laakiin wax badan aan ku kala duwanayn haddana doorasho samayn hirgelinta aan samaynay marka doorashada golayaasha deegaanka anagu xujada waa ka baxnay xujadan iyagaana hor dhignay waxay u muuqataa nidaamkii federaaliga ah inaanu hirgelinay taladii dadkii dib ugu celinay xujadaasna aan ka baxnay nidaamkii federaaligana aan geynay meel laga soo laabtaan ah marka sidaas waxay naga ahayd annaga arinta falsafiga maxaan ka baranay arinta waxaan ka baranay in ay doorasho suurtagal tahay dalka Soomaaliya inay ka dhacdo meeshii markaa nabadi ka jirto haddii ay jirto ka goonaan iyo hoggaan dhab ah oo meesha u socda waayo dadku way rabaan inay soo doortaan cid matalaysa ay kala xushaan iyagu maalmahooda cid ay bari la xisaabtamaan iska bedeli karaan marka waxa noo soo baxday arrintaasi inay suurtagal tahay haddii hoggaan iyo talo iyo qorshe lala yimaado laakiin aysan noqon doorasho laab la kac ah ama maalin ku guur ah ama maaragtay meesha uga gudub ah ama shaatiga ku tola haddii aysan ahayn dadka Soomaalidu taa waa fahmayaan taas ayaa nooga soo baxday runtii hawshaas cadaadiska ah oo weyn oo naga horyimina waxa runtii riixayay oo jaranjarooyinka naga gudbinayay waxay ahayd rabitaanka dadka oo bir ah oo dadku ay meesha ay rabeen in isbedel sameeyaan runtii taas ayaa saldhig u ahayd maxaa hadda noo yaala annaga waxa noo yaala guddi doorashada jooga 8 xisbi baa jooga horta doorashadu dhalin way yeelan kartaa laakiin ma ahay doorasho fair iyo free ah marka Soomaalida sida ereyga loo dhigo marka dimuqraadiyada la cabirayo baan oran karaa maxaa lagu cabiri karaa waxa lagu cabiri karaa 36 degmo oo doorashadu ka dhacday marka laga reebo 7 degmo inta kale xisbi si gaar ah u dhisi karay ma jiro dowladii hadda talada haysay waxay ku guuleysatay oo kaliya 4 degmo 3 degmana waxa ku guuleystay xisbiye kala gedisan oo mucaarad ah inta kale xisbi ku guuleystay ma jirto badankoodu marka waxay ku dhismayaan golayaasha deegaanku si wadaaga taas waxay keenaysaa inay doorashadu ahayd doorasho miisaaman idoo bana codka ay ka heshay laakiin dhinacna aan u janjeerin taas ay sheegaysa marka in ahayd doorasho dimuqraadi ah oo dadku cid waliba siday u tartantay wixii ay heli kartay ay heshay runtiina haddeer ilaa 3-4 xisbi oo mucaaradka kamid ah ayaa dawladda kamid ah oo waxaan si practice gareynaynaa inaan cohabitation sameeyno coalition government inaan sameeyno nidaamkaygu waa parliamentary marka berito marka xisbiyadu doorashada galaan in dawladdu wadaaga la dhisi karo ayaa haddeerba la sii tijaabinayaa oo xisbiyadii mucaaradka ahaa ay dawladda kamid yihiin iyagu xisbiyada mucaaradka ahaan leh maxaa marka hadda noo horyaala oo ugu weyn arrinta hadda waxa ugu weyn hor yaala waxa weeye kow inaan dib u eegno horta dhabbihii aan soo maray wax ma naga khaldameen maxamed madow jiray
shuruucdayadii inaan dib u eegno oo si wada jira anagoo miir qabna oo waqti haysana oo dadkii wada joogno xisbadii mucaaradka iyo bulshadii inaanu dhabbihii aan soo maray dib u qiimayno dib u saxno dabadeedna u diyaar garowno wareega soo socdo ee doorashada anagoo diyaar garownay wareega soo socdo doorashada oo lagu gali doono markale golayaashii deegaanka iyo tii baarlamaanka iyo tii madaxtooyada 4 sano iyo xoogaa maan haysanaa arinta waqti baan u haysanaa marka dib u eegista ayaan ugu muhiimsan targetkuna waxa weeye wareega soo socda dadka reer Puntland mar kale inay doorashadooda ay soo doortaan cid matelaysa hawshaasina waa suurtagal waxaan u aragnaa anagu xeradii anagu aan ku tilmaami jiray qaniinka lahayd oo la deganaa oo laga guuray inay tahay dib looguma laabtaan oo dadku hadda meel kale ay ka aadayaan jiraan marka arintaasi intaas ayaa naga aadan qorshahaas ayaana noo degan waxaan rajaynaynaa inay dabowdo Soomaalida inteeda kalena waxaan rajaynaynaa inay tusaale wanaagsan u noqoto oo lagaga daydo inta qodobka haddaan kaga duudo waxaan rabaa inaan eray ka dhaho muranka iyo dooda taaganaha ah ee ka dhaxaysa Puntland iyo dawladda federaalka maxaan isku haynaa badanaaba waxaad maqashaan Puntland wax gaar ah ay doonaysaa waxaad maqashaan wadana gaar ay doonayaan madaxweynaheeda caraysan sheekooyinkaas maqashaan runtii waxa la isku hayaa ma aha dan qofeed iyo mid daneed oo gaar ah midna dooda Puntland iyo dawladda federaalku waa taxane muddo dheerna waa soo jirtay waxa la isku hayaa ana simbali waxa weeye dawlad dhiska dawlad noocee la dhisaya dariiq noocee la qaadanaya systemku muxuu ahaanaya maxaan kala yeelanaynaa see isu xukumaynaa jahadaas dastuuriga ayaan isku haynaa waana dood dastuuriga waana dood taxanaah oo ilaahay intii Puntland ay asaasantay yama intii dawladda federaalka oo soo socotay dood soo socotay weeye dawladda ugu horeysay oo Cabdiqaasim xilligeedii ra'iisul wasaare Ali Khaliif markuu joogay doodahaasi waa jireen markii xataa dambe oo Cabdullaahi Yuusuf oo madaxweynaha ahaa oo caday Cabdullaahi Yuusuf doodaasi way ka dhaxaysay marka arrimaha shidaalka la eego markii la doortay Cabdiraxmaan Faroole xiriirka dawladda federaalka iyo dawladda maaragtay Puntland ma bajirinba marka Cabdullaahi oo xilkiis ka soo casilay oo meeshii lagu kala tagay oo Asmara iyo waxa lagu shiriyay iyo Djibouti baa lagu shiriyay xiriirkaasi ma jirin Cabdiwali markii la doortay xiriirku waa goona dani markii la doortay xiriirku waa goona haddii dib loo doortay saas uu yahay wax shakhsiya maaha intaas oo qofina dana gaar ah oo shakhsiyad oo iyaga leeyihiin ma ay daba socon ee waxay isku hayeen dawladnimo noocee ah ayaan dhisanaynaa dastuurka ayaan soo haysanaa Puntland waxay asaas u ahayd oo ahayd state ugu horeeyay la dhisay in nidaam federaal ah ee dalkan uu ku wada noolaado nidaamka federaaliga ahi wuxuu ku yimid duruuf dawladda dadka Soomaalida ka dhaxaysay oo muddo runtii soo dhutinaysay 33 sano ka hor bay shafka dhulka ku dhufatay dabadeedna waa la kala yaacay nin walba deegaan buu aaday duruufaha samaysmay gaar ah federaalku nidaamka ayuu ka turjumayay in dadkii la isla doono wixii la ururiyo meel loo wada jahaysto lagu kala nabad galo wax lagu wada noolaan karana la samaysto nidaamka iyadoo ka duulaysa Puntland ayaa nidaamka federaaliga ah intii ka dambeysay nidaamka federaaliga runtii 6 dawladood ba hadda ka soo wareegtay anu sidaan ku doodo intii Soomaaliya maaragtay dib loo maaragtay burburkii ka bacday 6 dawladood ba jiray 3 dibadda lagu soo sameeyay waxay ahayd dawladda Carta oo TNG Cabdiqaasim hogaaminayay oo 10 sano ka bacday markaan saaxadda ka maqnayn dib loo asaasay wax badan dawladdaasi ma qaban laakiin waxay ku soo aaday xilli 10 sano aan cidina magaca Soomaalida metelin aan taaganna uusan jirin marka waxay ahayd astaan runtii marka loo baahnaa oo muhiim ah yidii ahayd wax kale badan ma qaban waxa ku xigay dawladda ku xigtay oo Embagati 2004 oo charter federaal ka soo baxay runtii filla Soomaaliyana dawladnimadii dib ugu celisay 16 sano ka bacdi waxayna ahayd talaabo muhiim ah oo la qaaday waxa ku xigtay dawladdii kale iyadana Djibouti lagu soo dhisay Sheekh Shariif lagu doortay oo iyaduna talaabooyin muhiim qaaday oo qaaday dib u heshiisiin dadku inay soo dhawaadaan gorowan iyo goroyatu laga wada hadlo dastuurkii ku meel gaarka ahaa
la dhiraandhiriyo afti dadweyne ku meel gaara loo qaado markii ugu horeysana dawlad Soomaaliyeed xamar lagu doorto talaabo weyn oo muhiim ah ahayd laakiin maalinta ka bacdi dawladii ku xigtay oo 2012 xasankii kuwaad maalintuu yimi itijaah kale ayaa dhacay saddexda dawladood oo kale oo ka dhameeyay saddexda aran oo xasan sheekh ugu horeeyay dhinaca kale ay dawladnimada u wadeen xasan maalintii la doortayba wada kale u qaaday wuxuu ka hor yimi si toos ah markii uu horeysay nidaamkiisa dhismihii Socday dawladiska ee dhismihii Jubbaland ayuu ka hor yimi markii dambe oo arinta looga adkaadana wuxuu sameeyay waxaan ugu yaro isdaad raacin oo maamuladii kale ayuu saddex bilood ku sameeyay isagoo markaa siyaasad ka dhaxarkay iyo doorasho laakiin niyad ahaan nidaamka federaalka xasan sheekh waa diidana waana ka horjeeday dawladii ka dambeysana wadadaas ay sii raacday xasan sheekh oo ku doodi jiray qabyo ninkeeda dhameystirana xasan sheekh labaad wadadiisii hore waa uu jeexay ayuu wadaa oo nidaamka federaalka waa ka hor ka jeeda runtiina saddexda dawladood oo dambe oo xamar ku dhalatay sida anigu aan ku doodo saddexduba waa reversal waxay ka hor ka jeedaan saddexdii hore oo ahaa dib u heshiisiin iyo federaal iyo soo dhawaasho saddexdaanna waa dhinaca kale dawlad gacan qura iyo meel qura taala ayay ku jahaysan yihiin doodaas marka isbedeshay federaal diidka ah gacanta qurka iyo meesha qura ku socota ayay Puntland waxay leedahay warmaya sidaa laga daayo nidaamka lagu heshiiyo lagu socdo dastuurkii hal la qaato doodaan isku haynaa waa mid ah waa dawladiski xasan hadda dastuurkiiba waa bedelay dastuurkii qabyada ahaan heshiiska ku waa balaalayba wuxuuna samaystay mid isaga u gaara xasan waxaan isku haynaa marka jihadii iyo dawladiski waxaan isku haynaa dastuurkii waxaan isku haynaa deeqihii waxaan isku haynaa directionkii la aadi lahaa intaasaan ayaan isku haynaa Puntland ma qabo inay ay khaldan tahay taariikhdana dhinaca sax ah inay ka taagan tahay baan qabnaa talaabo kasta oo muhiim ah oo la qaaday dawladiska loo qaadana mid hore oo taariikheed iyo intii hadda ugu dambeysaba talaabooyinka muhiimka ah ee dawladiska ee taariikhiga ah Puntland ayaa qaaday state ugu horeeyay la dhisay ahayd nidaamka federaalka ay keentay fila Soomaaliya ku celisay goroweyn gorotuubay keentay intaas oo dhanba iyada dhiraandhirinaysay laakiin waxay diidan tahay wixii shalay lagu jabay oo lagu kala tagay oo kalsoon xumadu ka dhacday in mar kale dib loogu noqdo waxaan u aragnaa wadadaas inay tahay wada aan sax ahayn marka dooda annaga iyo dawladda federaalka waa taa xasan hadda deeqihiibu hor taagan yahay federaalkana waa hor taagan yahay doorashadii iyo dimuqraadiyadiina waa hor taagan yahay annaguna waxaan leenahay war xasanow kada taa ayaa taagan oo kaliya hal eray oo kala rabaa inaan dhaho oo ayaamaha soo kordhay oo walwalkiisa leh waxaana weeye arinta ah Soomaalidu hadda iyada ay haysatay runtii oo de xaqiiqooyin kala gedisan ku kala maqnayd oo hadda de anuusan ku doodo saddex xaqiiqo ayaa jirto waxa jirta Soomaaliland oo gooday 33 ka hor badibada u baxday kala goytaan taagan Puntland nidaam federaal ah taagan waayahan u sii guuxayso qaaran kamid ah ay dhahaan warkan federaal ay guuro si loo kala badbaado iyo xamar oo leh taladu hal meel quraha haato marka inaga dhexdeena iska haysanay laakiin wax kala soo kordhay wax kale oo khatar ayaa soo kordhay waxa soo kordhay inaynu ku dhaxdhacano dab kale oo proxy ah oo doolal kale ay ku dhex dagaalamayaan dalkeeni xasan waayahan wuxuu galay heshiisyo badan oo military oo qarsoodi ah aan cidina ogeyn Ethiopia heshiis la galay qarsoodi iyo military Imaaraadkana waa la galay Turkigana waa la galay Masarna waa la galay ilaaha baa inta kale hoosayso aan qarsoodiga ah oo aan cidina ogeyn oo la galayna kii ugu dambeeyay Turkiga markuu galay hal qof oo arkay male baarlamaanka uu hortagay baarlamaanka aan hadda waxba aan diidinba oo aadan madaba hogaaminayo wuxuu yiri ana idin soo akhriyay oo aan ogahay ee igu qaata oo igu ansixiya wax alla waxay ansixiyeen ma yaqaaniin intaas oo heshiis oo qarsoodiya oo military oo dalal iyagu isdiidan oo danahooda isku diidan ku dagaalamaya ayuu horta dhex galay marka kilkilada fayl buu ku sitaa faylkaasi waa miino inuu nagu qarxana way dhowdah khatarteedana waa leedahay hadda Masar waa dal Afrikaan waa dal Carbeed waa dal taariikh xiriir aan la lahaan jiray
لكن مركي وجود ميسي ومصر سي أكتفة سياسة صوماليا يوصل لحق الشيء وحي هيد كوني سقال بقولي سقال سنية الدبدي وحي كتمي وحي كتمي يضم مدة رئيس السودان الدولة ديسكي ضدي دولة ديسك الصومالي وشرر بدين السودان ومركا لو بلنسية هي شركة عيلها بوصاص وتندوين كلا كياني ولو بلنسنا أي مصر وحي دكتي يقول دقدقة قاهرة هل كاس اللي يسوق تجي مصر وحي تريد دجال كيسو كيها صومالي ولو كلات كاضي كونفور باكوات كاضي عيدي على مهدي بعد كاضي مدحوينه رئيس صار هي قاضنايا أرنتا وحى كدلات عرو يورنتي سكرنوا شركة وحى كتشري عبد الله يوسف الله حارستي يا ذنقبيو ويكسب بحين هل كاس أينا كبدلابته دولة بنتلان إن لا دسو marka maalinta dhinac khaldan ay iska taagtay taariikhda dawladiska Soomaaliya Masar 27 sano ayaa ka soo wareegtay maanta 27 sano ka bacdina Masar waa nagu soo dhaxdhacday طبعا danaheeday wadataa biyaheeda neel bay u dagaalamaysaa Itoobiya biyo hoosteeda iska arkeen laakiin anaga waxay rabtaa inay naga dhigato xaabo dabkaas loo maro marka waxaan leenahay Masar ay walaalay أم بطيدي بيحصل ليسه محن ترى نفتعله مركا أرنتاس ميدان قلي قرّه معها حسن نوحن لنا هاي ولالو انتي هرب حمل ويني وحلو وسوقار هذه يوم هتنتي